Tababarkan oo soconaya muddo 2 maalmood ah ayaa loo qabtay shaqaalaha wasaaradaha Galmudug gaar ahaan agaasima waaxeedyada si kor loogu qaado tayada shaqaalaha Galmudug waxaana qabanaysay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Galmudug. Shamsa Cabdulqaadir Suufi agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Galmudug oo ugu horeyn xiritaanka aqoon kororsigan ay ka hadashay ayaa waxa ay la dardaarantay ka qaybgalayaasha tababarka si ay uga faa'iideystaan muhiimadana u qaataan in aan helno xogta rasmiga ah ee shaqaalaha Galmudug ay leedahay wasaarad kasta cidda ka shaqeyso ee dadkii ofisarada ah oo madaxda ah oo soo gudbi lahaa ama directorski waadiga waxaan ka rajaynayaa tababarku markuu dhamaado in qof kasta uu og yahay ama uu aad maxaa la yiraahdaa ay faa'iido badan uga helay wixii meesha looga wada hadlay oo sana noqon meeshii marka noogu dambeysay through email lagu xiriiro tababarkii kaleeto oo loo baahdo oo maxaa la yiraahdaa ama ha noqoto Galmudug dhexdeeda ama Galmudug banaankeeda ina qof walba oo maanta maskaxdiisa furo waxa looga baahan yahay oo arko kadibna markuu xafiiskiisa ku laabto oo shaqada halkaas ka sii wado oo si ay noogu sahlanaata annagana soo aruuriska ama tirakoobka shaqaalaha Galmudug. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Galmudug Maxamed Nuurdiin ayaa sheegay in wasaaraddu diyaarisay sharciga shaqaalaha si qof waliba oo shaqaalaha Galmudug ka tirsan xuquuqdiisa u helo tababarkanina uu yahay mid kor loogu qaadayo tayada shaqaalaha. Wuxuu ku saabsan yahay doorkii wasaaradda shaqada qaybtii shaqada oo aad moodo in muddo is arkin sida la socotaan wasaaraddu waxay diyaarisay sharciga shaqaalaha si shaqaalaha xuquuqdoodii iyo saacadihii shaqada iyo waajibaadka ay leeyihiin dastuuriga ay u gutaan xuquuqdoodana loo ilaaliyo. Sharciga xukuumadda waan marsiinay baarlamaanku hadda hor yaala insha Allah taala maradu baarlamaanku hor yaalan waxaan isla garanay wasaaraddu garatay in shaqaalihii wasaarad kasta agaasim waaxeedkii shaqaalaha in bal horta marka hore aan training-kii aan siino wasaaradda ay isbartaan waajibaad la kala qaato si loo helo tirada iyo tayada shaqaalaha dowlad goboleedka Galmudug nooc rabaan ha ahaadaan. Dulucda workshop-kan intaas waaye dabcan boorka u jeedaan annaga hay'ad naga fangareehay ma jirto waa isku tashi wasaaraddu ay wado oo muxuu ahaa waajibkeedii ku guunayso adikan qaybaad ka tihiin marka waxaan rabnaa inaad u dhabar adeegtaan inaad maaragtay waqti la siiyo la kala faa'iisto waxa idinku jira aan ka faa'iidno waxa nagu jira naga faa'iidaan si halka iskaashi ugu yimaado shaqaalaha horumarinta shaqaalaha guud ee Galmudug runtii ma ahaanayso workshop-kan kan kaliya waxaan rajaynaynaa oo wali aan balqaad rasmi ah ka haysan hadii Ilaahay idmo tababaro gudaha iyo dibadda ah oo agaasim waaxeedyada kabaasikooda kor loogu qaadayo hadii Ilaahay idmo. Wasaaradaha Galmudug ayaa waxaa ka howlgala shaqaale badan kuwaas oo sare u qaaday howlaha maalinlaha ah ee ka soconaya dowlad goboleedka Galmudug si bulshada loogu adeego. Maxamed Qabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuuso Maraab.